السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أخياري ميل كستو عاد نقدا ونسان كسور دوادا برنامج كيني قلب نمو وقلب نمو إسنينا تاريخ دونا أي كوبيغان تاي ساقالكا بيشة جون سنة كالباكون يشان يلاباتن برنامج كينا قلب نمو وحينو كسو قادن دونا وركا آدكا لو وضو دولة واوين أي كالليان ورباهين واوين أي كالليان إسرائيل laftirkeeda la isku dhagan yahay markabkii iyo dadkii saarnaa oo la sheegay bin Ghaviir inuu u diyaariyay godad dhulka hoostooda ah in lagu xiro sheeko la yaab leh oo arinka ka socota dawladahoodii oo qaylinaya haddaba wararkii ugu dambeeyay arinka laga qoray waa nadiinaya waxa soo kale aan nadiinaya wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaza waxa soo kale aan barnaamijka ku soo gudbin doonaa Elon Musk ninka la leeyahay aabihiis oo Ruushka jooga oo isaguna bal ka hadlay dagaalka Trump iyo Musk sheekooyinkaas aynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno warar dheeraad ah haday soo kordhaan waan idin la socodsiin doona kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo haddaba waa galabnimo isniina barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda doonida la sheegay dadkii la socday in Israa'iil la degtay oo ay xabsiyo hadda ku gurayso haddaba wararkii ugu dambeeyay ee soo kordha sheekadan waxaa wax ka qoray marka hore telefishinka Al Jazeera haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay doonida la yiraahdo Madeleine ayaa waxay gaartay deegaanka la yiraahdo ama dekada la yiraahdo Ashdod waxaana la sheegay in Israa'iil ay u diyaarinayso dadkii la socday inay ku xirto xabsiyo adag haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay doonida iyadu markaa gurmadka ugu socotay Gaza oo la yiraahdo Madeleine ayaa waxa la geeyay dekada Ashdod ee ku taala bartamaha Israa'iil waxaana la socday 12 dadka iyagu markaa u ololeeya nabadda ah oo doonaya inay xayiraada ka qaadaan Gaza ciidamada commandoska Israa'iil ayaa la sheegay inay markaa iyagu markaasi ay fuuleen markabka isla markaana ay kaxeeyeen journaalka la yiraahdo Israa'iil Hayom oo isagu ka soo baxay Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in markaa ay diyaar u noqonayaan kuwa keenay sida la leeyahay ama in loo diyaariyay kuwii la socday doonida godad dhulka hoostiisa ah ama xabsiyo adag oo qof walba mid lagu xirayo oo markaa aad u dhib badan oo ku yaala deegaanka Ramallah wasiirka amniga gudaha Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in markaa uu ka mamnuucay hay-adaha isgaarsiinta raadiyoyada telefishinada inay u soo dhawaadaan xataa halka ay ku xiran yihiin waa tahay marka ma u jeedaa nimankii zanaaziin meel la yiraahdo zanaaziintu waa qolol yar waayo qofku ma fadhin karo ma istaagi karo rafaad dhibaato meeshaas meel Ramallah ku taala xabsi ah ayaa mid walba lagu xirayaa leeyahay bin Ghaviir oo marka dhaarsan wuxuu leeyahay waxa idin soo wada sheegaysiin xayiraadaan meel saarnaa ka qaadaynaa leedihiin ma idinka wax ka qaadi kara markaasuu wuxuu sameeyay raadiyo ma imaan karo telefishin ma imaan karo wax imaan kara ma jiraan marka maxaa la sameynaa cid noo imaan karta male kadib marka waxaa bilowday qayla bilaabatay Spain qaylo fara badan ka socota dawladda Spain way qaylinaysaa dawladda Faransiiska waxa leedahay dadka Faransiiska ah ee doonida la socday in dhibaato loo geysto ma ka ogolaanayno Israa'iil waa la qaylinayaa dawladda dadka maartay iyagu markaa ururkan ay ka tirsan yihiin gurmadka sameynayay ayaa ka codsaday dawladda waaweyn sida Ingiriiska oo kale inay ka shaqeyso sidii dadka loo sii dayn lahaa marka adduunyadii oo dhan ayaa qaylinaysa hay-adda xuquuqda aadamaha adduunka ayaa iyaduna war soo saartay waxay leedahay habka ay wax u dhaqmayaan madaxda Israa'iil hab la aqbali karo ma ah dadka waxay ka shaqeynayeen samafal in sidaas loo gala ma ah kooxaha Falastiiniyiinta ayaa iyaguna
waxay ka hadlayaan arrinkaas hadday tahay islaamiga jihaad xamaas kulligood waxay leeyihiin hawshaasu hawl saxa ma ah. xamaas waxayba leedahay kuwan waa burcadbadeed dowladda isku sheegaya wax ka jira male sheekadaas halkaasee mare waa tahay marka aan idin tuso telefishinka aljazeera ayaa isaguna warbixin iyaga u gaar ah soo saaray oo ay kaga hadlayaan xarigga la sheegay wariyahooda oo ku jiray 12 in halkaa lagu xiray. aljazeera waxay sheegtay inay cambaareynayso weerarka Israa'iil ay ku qaaday doonida la yiraahdo Madlin. shabakada aljazeera ee dhinaca wararka ayaa waxa ay sheegtay weerarkaasi lagu qaaday doonida la yiraahdo Madlin oo ku sii jeeday inay jabiso ama ay ka hortagto xayiraadda saarneed Gaza. ayaa waxaa la sheegay inuu la socday wariyahooda Umar Fayaad waxay sheegeen aljazeera inuu la socday dadka u ololeynayay nabadda uuna ka soo waramayay xaaladooda hadba sida ay tahay xaalkoodu ayuu war ka soo diray. marka waxay sheegtay in markaa xukuumadda Israa'iil iyadoo ay mas'uuliyadda oo dhammaystiran qaadi doonto nabadgelyada wariyaha telefishinka aljazeera kaasoo isagu aan wax dambiya lahayn balse dul saarnaa safiinada ama doonta si uu wararka halkaa ka jira caalamka ugu soo tabiyo. mawjada aljazeera wariyaha laga haystaa Umar Fayaad waxaaba la yaab leh meesha lagu xiray faahfaahiyaashu waxay leeyihiin zanaaziinta af carabi waxaa lagu yidhaahdaa qolal waxaa jira qofku dhibaato fadhigaa dhibaaya istaagaa dhibaaya jiif haba sheegin maaragtay xabsiyada dhan waa leeyihiin adduunka meelaha dadka sida xun loogu ciqaabo. marka waxaa leeyahay dadkan maxay dembiya galeen waxay yiraahdeen annagu dadka la go'doomiyay ayaan go'doominta ka qaadaynaa la dhibaateeyay gargaara u wadnaa dadkani tuuga ma aha wax kale ma aha laakiin sababta intaa loo yeelay maxay tahay si aysan qolo kale ugu soo dhiiran bari xayiraadaan qaadaynaa aysan u dhihin kuwaana la cadaaba. marka waxaa is haysta dowladihii dadkanu ay ka dhasheen way og yihiin dadkanu inay dambiilayaal ahayd. markaasaa faransiiska isbaanishka wixii oo dhan waa la qaylinaya waxaa leeyahay muwaadiniinteeda waxaas ma binaqafiir dhegaysanaa ma dhegaysanay ma carabtii sheegu le wariye ma iimaa karo raadiyo ka socda telefishin mid ka socdana ma iimaa karo le. waayahay qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa. sheekada labaad ee barnaamijka aynu kusoo qaadanayno waxay noqonaysaa arrinta ku saabsan Gaza iyo xaaladeeda saacadihii la soo dhaafay maxaa ka dhacay Gaza. haddaba Gaza waxaa ka dhacay leeyahay saacadihii la soo dhaafay dhibaato ka dhacday oo dad fara badan dhintay. duqeymihii madaafiica la garaacayaa taangiyada way soo garaacayaan qoryaha madaafiicda waa lagu soo garaacayaa diyaarado waa garaacayaan meelaha la garaacaya marka maxay yihiin waxaa la garaacayaa goobaha nimanka kanu maalmihii la soo dhaafay nagta looga saaray shujaaciya iyo jabaaliya iyo khan yunis iyo waa duqeynayaan xaasidnimo way la dhacayaan sababtoo meesha haday soo galaan nagta laga saaraya. marka waxay leeyahay kuwa kan meesha ku jira macal dadka la jooga hala laayo. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay ee sheekada ku saabsan hadaan idin la wadaago 47 qof ayaa ku shahiiday ayaa la leeyahay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen ilaa aroortii saakay. wasaaradda caafimaadka magaalada Gaza waxay sheegtay maanta oo Isniin ah in tirada dadka wax ku noqday weerarka cadawtinimada Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza ay markaa sii socoto oo ay kor u sii kacayso. 24 saac ee la soo dhaafay 47 qof ayaa ku shahiiday 388 kalena way ku dhaawacmeen. waxaana lagu tilmaamay in markaa xaalad aad u adag oo dhiig fara badan uu ku daatay ay ahayd weeraradaas dadka ay wax ku noqdeen. guud ahaan tirada dadka ku dhintay Gaza tan iyo markii dagaalka uu bilowday waxay gaaraysaa 54927 qof ayaa ku shahiiday waxaana ku dhaawacmay 126,615 qof laga soo bilaabo ilaa 7 Oktoobar sanadkii 2023.
وفرصة ما شاء الله بابا لكن يوم واحد تبرتوا ذا واد عالمه ما يشوف حلقة المعمل 2 مليون يبر إني جزا كل عليه 2 مليون يبر بقول يلحي على بعضكم أو دعوة كتني أفركن أو دمشق مركل أسودر ولا بقول يحوجا كن واحد انتي واحد دعوة ميواي مركا حالته مركا هالكاس مرسالة ضد بدنا ولي واحد شري عن لوجين أو مركا بربركي يقولي هوستو دي كتشري قدر حيسيسة كدب وحنقلنا شيكالا يابله أو كسابسن إيلون ماسك نكلا ليه يؤدوك وقتا ترسن أو عيسايان ترامب أيا أبيه اسكها الله يدقال كويل كيسا يترامب ودحيا حلي أو كسوغنا ودك الروشكا كل تونا أكسن مركلا أصحابي ميلكستو أتوكتان كسور دواذا برنامج شينا قلب نمو هذا برنامج كوحينو مرينا قيبيه سي ugu dambeeyay qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa maalmahan waxa miidiyaha saaran dagaalka u dhaxeeya Trump iyo ninka ugu taajirsan adduunka ee yiraahdo Elon Musk hadaba Elon Musk aabihiis ayaa wuxuu tagay Ruushka wariyaasha ayaa su'aalo weydiiyay waxa la yiri wiilkaaga iyo Trump ka waran markaasuu sheeka la yaab leh ka sheegay hadaba marka aad soo telefishinka Al Jazeera oo goordhow sheekada qoray aabaha dhalay Musk wuxuu sheegay wiilkayga wuu qaldanaa u dhahay inuu ka hortago oo uu la diriro Trump inuu la diriro ma ahayn uu leeyahay wuu qaldanaa hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay aabaha dhalay milyaneerka adduunka ugu lacagta badan Elon Musk ayaa warbaahinta u sheegay xilli uu ku sugnaa wadanka Ruushka caasimadiisa Moscow in khilaafka u dhaxeeya wiilkiisa oo ah ninka ugu lacagta badan caalamka iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hadaba wuxuu sheegay mid walba inuu markaa cadaadis saaran yahay Elon wuxuu sheegay waa wiilkiisa inuu ku qaldamay inuu xilligan ka hortago Trump maadaama uu yiri Trump waa madaxweyne marka wiilkaygana inuu hadda dagaalka gala ma ahay odagu wuxuu dhahay wiilkaygu waa degdeg inuu ninka la dagaalamo ahay marka waxa la yiri dagaalkii ku adkaan doon wariyaasha waa imtixaan waxa la wiilkaaga iyo Trump wali way ishayaane dagaalkii ku adkaan doon madaxweynaha ku adkaanayo nin dhan oo madaxweynaha iyo wiilkayga ma isku mid ah wiilkayga taajir ha aad lacag haysto laakiin ninkan magaca dawladeed oo isticmaala wax badan oo isticmaal kara marka wuxuu leeyahay wiilkaygu ma ahay inuu ninka la diriro ma ahay marka sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii galabnimo inta aan markale kulmayno barnaamijyada la gareey oo share gareey hadda subtana subscribe ka ilooba YouTube ka Facebook kana follow gareey nabadgelyo